السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي soo dhawaada meel walba joogtiin channelka daawanaysiin waa channelkii Dr. Saddam Hussein maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo shantan product haddaad isticmaalaysid aadna gabar tahay mar walba ka digtoono in ay maaragtay dhibaatooyin ku gaarsiin karaan ama ay ku gaarsiin karaan jirkaaga maxaa ka mid ah productka koowaad waxaa waaye wax loo yaqaano compact powder inta laga helaa mostly ama intuu common uu ku yahay oo mostly intuu ku badan yahay compact powder-ka waxaa laga helaa waxyaalaha loo yaqaano foundation-ka iyo gabdhaha waxay wajiga ay marsadaan compact powder-ka marka maxaa ku keeni karaa oo dhibaato ah compact powder-ka waxaa ku jiro sun loo yaqaano ama wax loo yaqaano asbestos-kan powder-kana lagu soo daraa sidii oo maaragtay jirkaaga asbestoska marka lagu soo daro asbestoska wuxuu sameynaa waxa waaye jirkaaga in uu maaragtay uu ka saarmin waxa loo yaqaano foundation-ka ama waxaad marsatid oo powder-kaas aad wajiga aad marsanaysid haddaad gabar tahay inuu maaragtay uu ka saarmin oo maaragtay si fiican meeshii softigii iyo maaragtay uuna kaa dhaqmin oo maaragtay ilaa adiga iska tirtirtid mooye uu sidii uu kaaga daadanin powder-kii asbestoska marka muxuu ku keenaa marka haddaad isku badin oo ku jiro compact powder-ka muxuu ku keenaa asbestoska wuxuu ku keenayaa cancerka loo yaqaano ama cancerka oo skin-ka oo noociisa uu yahay mesothelioma wax loo yaqaano uuna dhib badan yahay mar walba ka digtoono ayadana maaragtay sidii aad iskaga ilaalin lahayd productiga labaad oo maaragtay mar walba ay gabdhaha isticmaalaan oo dhibaato weyn u keensanayo waxaa waaye productiga loo yaqaano kuwa cidyaalka la mariyo iyo kuwa cidyaha lagu bixiyo sida loo yaqaano nail polish-aga iyo nail remover kuwa la marsado oo ku stick gareynayo meesha ku dhignaanayo cabaar iyo kuwa looga dhaqabo labadaas eegana maxay ku keeni karaan nail polish-aga kuwa oo maaragtay paintiga oo la mariyo cidyaha waxaa ku jiro wax loo yaqaano tolin-kan wuxuu ka saacideynayaa in uu maaragtay wixii meesha lagu mariyay inay dhaqso ay dhaqmin oo mar walba meesha ay ku dhignaadaan tolin-kan marka dhibaatada la socoto waxaa waaye mar walba haddaad maaragtay tolin-kan aad marsatid oo markii cidyaha lagu soo mariyo waxaasi aad maaragtay aad sanka aad u dhaweysatid ama aad maaragtay neeftii wax walbo raangi ah waxay leeyihiin maaragtay shirkaas ka soo baxay shirkaas dad gudaha uu gala wuxuu ku keenayaa maaragtay xabadkaaga dhibaatooyin badan buu keenayaa sidoo kale xibnaha hoose oo maaragtay reproductive organ-ka wax loo yaqaano dhibaatooyin badan bay u keenayaan mar walba ka digtoono ayadana sidii aad iskaga ilaalin lahayd weli raangigan cidyaha la marsado waxaa kale ku jiro wax loo formaldehyde wax loo yaqaano formaldehyde waxaa waaye wax oo maaragtay qofka meydka markuu dhinto lagu reserve gareeyo waayo oo qofka markuu dhinto oo meyd uu noqdo oo wixii lagu duraayo oo intuu yaalo oo dadka mortuary-ga yaalo badi formaldehyde-ka baa lagu duraa sidii uu usoo shiirin bahladan eegana waxaan baa lagu soo daraa sidii hadhowteeda dambe maaragtay sida kale loo isticmaalo sidii ay meesha ugu dhig marka aan u gudagalna nail remover-ka waxaa ku jiro wax loo yaqaano aceton-kan waxaa waaye hazardous substance waxaa waaye wax oo khatar ah maaragtay oo jirkaaga aan u wanaagsaneyn ayadana ka digtoono waxaan diyaha la marsado dhib badan bay leeyihiin shayga saddexaad oo inaad iska ilaalisid la rabo oo productgan kamid ah waxaa waaye wax loo yaqaano intermittent washing products waxaa kamid ah sidii wipeska waxaa kale kamid ah sida maaragtay shaving gels-ka wax loo yaqaano oo marka aad xirid qofka timaha uu xirto maaragtay gel-ka la mariyo timaha waxaa kale kamid ah body products-ka kareemo badan baa kamid ah intermittent washing product-ga maxay ku keeni karaan haddii aad maaragtay chemicals-ka ku jiro aad si fiican aad iskaga fiirinin waxay ku keeni karaan wax loo yaqaano human papilloma virus-ka waxay kale ku keeni karaan wax loo yaqaano haddii aad hoostaasi aad ku dhaqdid waayo oo mostly gabdhaha kareemada iyo maaragtay ay marsadaan ay kamid yihiin marka waxay ku keenayaan waxaa waaye marka risk factor-kaaga bay badanayaan sida uu kugu dhacayo human papilloma virus-ka waxaa kale ku keenayaan wax loo yaqaano cervical cancer-ka waxaa kale kugu badinayaan wax loo yaqaano maxaa la yiraahdaa pelvic inflammatory diseases-ka iyo maaragtay UTI-ga infectionada hoose ku dhaco gabadha productiga afraad in aad iska ilaalisid waxaa waaye waxaan maaragtay loo yaqaano hair removal-ka wax walba oo jirkaaga aad marisid oo marka iyada timaha ka saaraya haddaad aragtid dhibaato weyn bay ku keenaysaa ogow in ay maaragtay hazardous ay jirkaaga ku yihiin khatar ay ku yihiin jirkaaga
mar walba waxyaalahan ay dadka ay marsadaan ee la dhahayo maaragtay timahaaga bay kaa saarayaan isku marka iyada meel haddaad marisid oo timahaaga ay wada gurmayaan oo product ah oo maaragtay kareemo ah ama waxay ahaadaan ayagana waa inaad iska ilaalisid because of dhibaatooyin badan bay ku keeni karaan. Waxaa kaloo ku jiro waxaan maaragtay loo isticmaalo oo timaha loo marsado oo timaha dadka ka goynayo kareemada ah timaha dadka saaraya. Waxaa ku jiro wax loo yaqaano glycolic wax loo yaqaano substance kan waa very hazardous mar walbo waa khatar. Waxayna ku jirtaa kiimikada oo maaragtay dadka inay isticmaalaan loo oo batatan la xiray oo maaragtay dadka inay isticmaalaan loo baahan yahay. Sheyga shanaad ugu dambeys waxaa waaye wax loo yaqaano permanent hair dye wax loo yaqaano raagyaashan oo timaha la marsado oo maaragtay oo ayagoo idil timahaaga oo idil wada bedelayo oo maaragtay kalarka timaha ka bedelayo. Raagyaashan dhib badan bay leeyihiin kalaradan dhib hazardous badan baa ku jiro kiimiko badan baa ku jirto timahaagan waxay u keenayaan inay maaragtay timihii ay gurmaan hadhow dambe oo maaragtay hadhow dambena ay maaragtay gudaha ay u gasho suntaasi ama kiimikadaasi ay dhibaato badan ay ku keento. Marka shantaas shay aan soo sheegay mar walba ka digtoonow dhibaatooyin badan bay ayaa la xiriiro kiimiko badan oo looga tirigalin ayaa lagu soo daraa productgan mar walbana ka digtoonow. Waxaa soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanidka barnaamijka fadlan meel walba joogtiin subscribe like and share ka kiilowina waana ku mahadsantihiin sida subscribe ka noogu saari haysiin mar walba waxaan idinka filayaa sida iyo si ka badan waxaan idin rajaynayaa nabadgelyo.